madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyi oo ku guda jiray waajibaadkiisa shaqo ee qaran ayaa xadhiga si rasmi ah uga jaray dhismo ballaaran oo cusub oo xukuumadda Soomaaliland ay u hirgelisay wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland kaas oo laga yeegleelay duleedka madaarka Cigaal mudane Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland ayaa ku soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu xadhiga ka jaray kana warbixiyay marxaladii kala duwan ay soo martay dhisitaanka wasaaraddaasi fariin cadna u diray madaxda xisbiyada mucaaradka wasaaradda madaxweyne waxay bedelaysaa wasaaraddeedii hore ee ka koobnay afar qodob waxay wasaaradani ka kooban tahay 22 xafiis oo laba howlan tahay taasoo maanta filan wasaaradda dhammaanteed waxay dabooli doontaa baahiyaha kala duwan waxaa loogu soo dhaweeyay madaarka muxuu ahaayey aviation kamar magaalada ku dhawaado waa wasaarad technical ah baahiyaha soo dhaway dabooleysaa ballanqaadkii bulshada ayay madaxweyne dardaarankaagii waanu xaqiijinay wasaaraddan waxaa ku baxday $280 muxuu ahaayey runtii waxay qabadka ay ummaddan dhaxalka aad uga tegasho ummaddaas ayay ka mid tahay wasaarado fara badan oo dhowr iyo tobana ayay ka mid tahay dhismayaashooda aynu xaqiijinay mucaaradku berigii aynu dhismayaasha aanu bilaabaynay wadnay waxqabadkan xukuumaddani wadnay waxay odhan jireen dhagaxyadaa la dhigayaa waa been markay rumoobeen dhagaxa inaanu been ahayn ee daaraha aan cadceedda la saari karin ay ka soo baxeen waxay bilaabeen inay yaadaan daaro iyo wadooyin loo baahnay dadka baqteeya haddaan daaro iyo wadooyin waxqabad ahayn waxaynu isweydiinaa maxaa waxqabad xukuumaddani waxay ballan qaadana waa fulisaa waxa ummaddana way dhowrtaa way ititibisaa haddaanu tuug ay xukuumaddani tahay waxaas ma dhismeen meeshu waa kiiskii yaraa uun erag badan yaqaan madaxweyne ku soo intaasi kadib madaxweynaha Soomaaliland markii uu xadhiga ka jaray wasaaraddaasi ayuu xafiis u galay si uu kormeer ugu soo sameeyay qaabka loo dhisay wasaaraddaasi madaxweynaha Soomaaliland markii uu ka soo baxay wasaaraddaasi waxa uu xadhiga ka jaray mashaariic kala duwan oo laga fuliyay dhabaha diyaaradaha ee Cigaal kuwaas oo dib u dhis iyo casriyeyn ballaaran lagu sameeyay guud ahaan adeegyadaasi baahida weyn loo qabay waxaana ka mid ah mashaariica uu madaxweynuhu furay meelaha lagu ururiyo oo la casriyeeyay madal loogu talagalay dadku inay ku nastaan oo ay ku raaxaystaan waqtiyada ay ku sugayiin garoonka diyaaradaha halka dib u habeyn ballaaran lagu sameeyay meelihii dadka soo degaya ay fadhiisan lahaayeen kuna nasan lahaayeen waxaa kaloo madaxweynuhu xadhiga ka jaray gudaha garoonka diyaaradaha ee caasimadda Hargeysa kaasoo si qurux badan loo dhisay wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland oo madaxweynaha faahfaahin ka siinayay guud ahaanba horumarkaasi kala duwan ee madaarka caasimadda Hargeysa uu ku tallaabsaday ayaa madaxweynaha sidoo kale faahfaahin ka siiyay adeegyo kala duwan oo cusub oo madaarka lagu soo kordhiyay kaasoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mashaariicaasi kala duwan uu indhihiisa ku soo arkay halka uu madaxweynaha Soomaaliland kormeer ku soo sameeyay ballaarin lagu samayn doono dhabaha diyaaradaha ee caasimadda Hargeysa kaasoo waqtigaasi ay faraha ku hayeen injineerada dhisaya dhabahaasi wasaaradda duulista iyo hawada ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba dhismayaasha kala duwan ee lagu soo kordhiyay garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xadhiga ka jaray ayaa ku soo beemaya waqti uu garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport uu baahi weyn u qabay kaasoo dadka ka soo degaya garoonka diyaaradaha iyo kuwa ka dhoofayaaba uu wax weyn ka tari doono dhismayaashaasi Cabdilaahi Cali Suudi iyo Axmed Saki Daahir Xasan telefishinka qaranka Soomaaliland garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa.